marka magaalada aan soo aaday rag ay soo wada dayaayo dumarka xataa ma wax soo wada waxaan dhiilaa indhaha iga yareeya tisoo aniga markaan wadada maraayo aad iyo aad korkayga uga xantooda kadib markii aan dhawaan baahinay muuqaalkii baraha bulshada qabsaday ee gabadha ugu quruxda badan ee Galmudug ee Samara Steel ee Gurceel ku sugan waxaa kordhay dadka sida weyn u doondoonaya muuqeeda iyo marla kulanka Samara waxaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno Samara oo soo aaday suuqa si ay u dukaamaysato waxaana markiiba isqabsaday suuqa dhexdiisa sawaxanka iyo qaylada hoonka gawaarida waxaana mar qura jaam noqday goobta ay Samara taagnayd iyo aaga ku xeeran waxayna dadka isha la raacayaan midabkeeda iyo muuqaalkeeda soo jiidashada leh laakiin Samara arrinkani wax walwal ah kuma hayo waxayna ay sheegtay in aanay la yaab ahayn in marka ay darawlo badan arkaan inay hoonka ku dul kufaan Samara Steel waxa ay leedahay waxa iska soo daba dhacaya casuumaad heer caalami ah waxa si badanaya dadka doondoonaya kadib markii ay baahisay qofka ay tahay Samara ayaa tiri inaan noqdo qoftan dheemanka odayaasha aniga waxaan ku dooranayo shirkoodan iska jeclaa odayaasha aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu yeeyo ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan quruxda badan u jeedaan xoolaheeda waxa iska leenin oday oo 80 jira badalan muuqaalka iyo sheergaray Galmudug waxaa iska soo daba dhacaya dhacdooyinka cajiibka ah ee laga soo warinayay deegaanadaasi haddii aad maqli jirtay gabar lagu qasbay oday ama nin da ah in ay guursato daawada waxaan hadda ku hayaa gabar iyadu dalbanaysa nin da ahaan ka weyn oo ciroolo ah si ay nolosha ula qaybsato gabdhaha hadda muuqaalkan daawanaya aniga waxay ila tahay inaan ka aqli badanahay sababtoo ayka habeen walba dhooc 20 jir la hadlaan oo ciyaalsiya aniga oday weyn oo 80 jir aan jeclahay oo la hadlaa habeenkii la arko Sahra Caato oo joogta deegaanada Galmudug waxa ay sheegtay arrin ciroole iyo saqiirba ka yaabisay taasi oo ah in odayaasha 80 sano jirka ah dhinaca sariirta ama gogasha ay kaga fiican yihiin wiilasha da'da yar ee maanta jira sida aan wada ogsoonnahay inta badan gabdhaha Soomaaliyeed aad ayay u necab yihiin in uu oday ka kor qufaco oo ay markaasi sariir la wadaagaan balse Sahra Caato ayaa qaadatay go'aan cajiib ah inta aanan muuqaalkan oo dhammaystiran kula wadaagin fadlan daawada muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo fariintan ay u gaarto una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook oo kugu weheliyo si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale ilaa aan shaqaansiga bilaabay ilaa hadda waxaan jeclahay inaan oday 80 jira aan guursado oo nolol la wadaago waana la wadaagi doonaa insha Allah rajaynayo aniga jimco walba odayga 80 sano jira waan wada lahaay beer dalxiisan tagi lahayn sawiraan soo wada gali lahayn aniga odayga 80 sano jiro hadii aan guursado magaalada afkas waa qacanta ku dhigaan la mar la saash hadii soo fiiriyaan waxa ay galanaya dad qof walba jacayl odayga 80 jirkaan jeclaa macnaha Sahra Caato oo ku nool deegaanada Galmudug ayaa sheegtay in aanay doonayn guursanayna nin da'diisa ka hooseysa 80 sano waa arrin la yaab leh waxa ay sheegtay in wiilasha yaryar aanay jacayl iyo naxariis waxba ka aqoon oo ay iyadu si gaar ah uga hesho odayaasha waaweyn ee ciroolayaasha ah iyadoo xustay in odayaasha ay shirkooda jeceshahay magacay waa Sahra Kuweyn waxaan joogaa degmada Gurceel waxaana gabadh ugu caateysan degmada Gurceel mustaqbalka waxaan jeclaan lahay nin oday 80 jir inaan guursado aniga odayaashu way naxariis badan yihiin dhan walba way ku fiican yihiin odayaashu wax garad waaye dhooc 20 jir oo aniga ugu faca ma doonayo Soomaalida hore waxay ugu mahmaaday naag ninkii dhali kara dhaqi kara halka odaga 80 jirka kama suurtagelayso inuu inta ku soo waco oo ku dhaho naaskaada ay tus iyo kilkiladaada ay tus iyo futadaada ay tus kama suurtagelayso laakiin wiilka 20 jirka inta ku soo waco wuxuu ku leeyahay asagoon xitaa wax wajiga ka leeyahay aan la arkin naasahaada ay tus iyo video ii soo dir horta badan dadku waxay dhahaan odayaashu dhanka sariirta kuma fiicna balse aniga waxaan aaminsanahay odayaasha dhanka sariirta boqolkiiba boqol way ku wanaagsan yihiin aniga odagaan jeclahay ilaa 8 saac waan wada hadalnaa sababtoo ay taan waan isjecelnahay anigana waan jeclahay isagana waan u jecel yahay marka kalama maarno waqti walba waan isla wada hadalnaa habeenkiina badanaa waan wada hadalnaa ilaa adiga 8 saac laga gaarayo waan hadalnaa hooy dhalinyaro aniga hay soo wicinina taleefankii waa iga dafideen aniga wiil dhalinyaro inuu isoo waco ma doonaayo halka oday 80 jirka oo jecelaha iga badan aniga oo heli kara oday 80 jira dheemanka lagu yeeyo ku dhex jiro ma heli doono wiil 20 jiro qalanjadan quruxda badan u jeedaan xoolaheeda waxa iska leenin oday oo 80 jira
fadlan muuqaalka ii sheer garay